halkani waa EBC News nabadgelyada ku soo dhawaada warka degdega ah ee EBC News isla markaana waxa wararka caalamka aan maanta idinku haynaa dagaalka laga baqay inuu ka bilowdo bariga dhexe isla markaasina u dhaxeeya dalka Mareykanka iyo Iran wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa waxa uu gaaray dalka Turkiga sidii markaasi ay ugu wada xaajadaan inuu dhexdhexaadin Mareykanka iyo Iran labadooda dhinac waxa la sheegay markaas halkaasi uu ku qaadan doono waqti si markaas halkaasi isla gaaraan in turkigu uu dhexdhexaadiyo labada dhinaca kale taliyaha ciidanka Iran ayaa isagu waxa uu sheegay in haddii iyagu lasoo weeraro aanay waxba xeerin doonin isla markaana ay weerari doonaan maraakiibta dagaalka ee diyaaradaha xambaara iyo goobaha saldhigyada ay ku leeyihiin Mareykanka ee bariga dhexe oo dhan markaasi waxa uu sheegay in markaasi si kasta ay isku difaaci doonaan haddii weerar lagu soo qaado dhinaca kale waxa iyaguna diyaargarow ku jira Mareykanka iyo xulafadiisa oo markaas maraakiibta dagaalka oo dhan ayaa gaaray bariga dhexe ee gacanka isla markaana waxaa laga cabsi qaba in halkaasi dagaal ka bilowdo balse hadda maanta situationku waa ku yara duwan yahay xaaladdu waa ka duwan tahay waxaa la sheegaya in madaxweyne Trump uu yidhi waxaan diyaar u ahay inaan wada hadal la galno ay miiska yimaadaan dhinaca kale Iran qudheeda waxaa la sheegay inay iyaduna diyaar u tahay wada hadalka kadib markay khadka telefoonka wada hadleen madaxweynaha dalka Pakistan iyo madaxweynaha dalka Iran waxay sheegeen in markaasi ay diyaar u yihiin in wada hadal ay galaan dhinaca kale cunaqabateyntii la saaray ee European Union ku soo rogtay ahayd in markaasi la saari doono cunaqabateyn dhaqaalaha dalka Iran iyo mas'uuliyiinta dowladda in cunaqabateyn la saari doono iyo dhaqaalahoodaba ayaa waxaad moodaa in hadda ay dib looga yaro noqonayo maadaama ay bangiyadu maanta soo saareen bangiyada Mareykanka iyo bangiyada Yurub ay soo saareen in markaasi ay xadidan tahay cunaqabateyntaasi ay tahay mid limited aanay ahayn mid markaasi aada u baahsan maadaama laga baqay in saliidda ay cirka gasho oo qiimaheedu ay noqdaan kuwa aan dadku goyn karin suuqyada ayaa markaasi walaac badan laga qabay dagaalka bariga dhexe qolo waliba waxay markaasi eegaysa in saliiddaasi kor loo qaado qiimaha ayaa kor u kacay marba hadallada ay isdhaafsanayaan miiriyaha labada dhinac ayaa waxa ay kor u kicinaysay qiimaha saliidda haddase marka cunaqabateynta lagu darana waa ay sii kacday dhinaca kale doolarka ayaa hoos u dhacaya marka dhibaatooyinkaasi dhan ay yimaadaan sidaa daraaddeed waxaad moodaa in hadalka Trump isku soo beegmay iyo hadalka bangiyadu ay yihiin kuwa markaasi hoos u dejinaya qiimaha markaasi saliidda oo dagaalkana lasoo yaro qaboojinayo marka waxaa isweydiin lahaa haddii markaasi dagaalku dhaco maxay noqon doontaa bal wixii kasoo kordhaa wararkaasi dib ayaanu idinka socodsiin doonaa ku xidhnow EBC News wararkeeda warkan oo dhammaystirana ka daawo qaybta videoga waad mahadsantihiin asalaamu calaykum